annagoo reera baanu ka saaraynaa annagoo SSC baanu ka saaraynaa inta hadhayna waanu ka saari doonaa waxaan odhan karaa oo dadka shacabka ee deegaamadan degan aan ugu bishaaraynayaa boqolkiiba 95 halgankii aynu ku jiray inaynu ku guulaysanay intaa yar ee goodoonka ee afarta dhinac aynu ka joogno ee halkaasa ee Soomaalinimada iyo bini'aadantinimada aynu ku xeerinayno baayna kaga hadhay Somaliland 8 markii subaxnimo ayaa ciidamada SLM ee Musabbix hogaamiya waxay weerar ku soo qaadeen ciidamada SSC fariisimadii ay deganaayeen ee jiidihii lagu ogaa iyagoo hore u caadaystay dadka shacabka ee reer Laascaanood ee deegaamadana intaan laga xoreyn inay dhiigooda xalaalsadaan isla markaana ay doonayeen sidii oo kale inay sameeyaan ciidamadu way iska caabiyeen waa la jabiyay bilbaaxa la xadle baa lagu dhuftay dhammaan goobihii ay saaka dagaalada ka soo qaadeen marka laga reebo rugta gooja cad ay ka degan yihiin waa laga qabsaday jab iyo halaag baa kaga dhacay ciidamada Somaliland ilaa iyo haddana way samri laayihiin iyagoo dadka deegaanadan iyo jamaahiirta iyo ciidamada SSC ay si la yaqaan oo aan cidna caad kaga rognayn ay markasta isaga xoreeyaan isla markaana ay Somaliland ka waantoobin inay soo qaado weerar isla markaana ay ku jabto ciidamadu aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa sidii ay isaga caabiyeen ciidamadaasu maanta nimankii duulimaadka ku soo qaaday ee jabhadii Musabbixi khasaare baaxad leh baa loo geystay dhimasho leh dhaawac leh maxaabiis qaar laga hayaa jira ciidamadii baan insha Allah waa soo bandhigi doonaa hadii lahayd ma berri baan soo bandhigi doonaa gaadiid baa jira oo ka mid yahay gaari ambalaasa iyo laba qabaal oo ciidamadu ay gacanta ku hayaan hadii lahayd ciidamadu markaanu qiimeynay maanta weerarkii ay soo qaadeen iyo sidii ay u jabeen waxaan ugu bishaaraynayaa dadka shacabka ee deegaamadan degan iyo nawaaxigeeda inta yar ee ayna ka degan yihiin inaan ku soo afjari doono hadii lahayd saacadaha soo socda ciidamada Somaliland inta ay gobolka Laascaanood degmada Laascaanood iyo deegaamadan gacanta ku hayeen dadka dhulkan dega waxa soo gaadhay dhibaato laxaad leh oo aan adduunka oo dhan ka qarsoonayn aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa jamaahiirta iyo dadka shacabka ee reer Laascaanood ee dagaalkan hor seegay isagoo ahaa dagaal shingala oo qof waliba ku taamaya inuu mar u dhaco waxaanu ka horeynay intii aanu anagu dagaalkaas socday dhammaan deegaamadii ay ku sugnaayeen ee Somaliland deganayd ee ay systemkeedu ka shaqeynayay ee aad wada garanaysaan inta degmo oo ay ka jirtay Somaliland qiyaastii deegaan aan ka yarayn 260 magaalo oo ay Somaliland ka jirtay baan caawa qof Somaliland ku noolayn waxaanu ku guulaysanay oo runtii nimo wadaniina noqday ciidamadii iyo saraakiishii la shaqayn jirtay iyaga oo ugu dambeeyay Kanaaco inay dhammaantood hadday kornay lahaayeen iyo hadday saraakiil dhexe ahaayeen iyo hadday saraakiil hoose ahaayeen iyo hadday askar ahaayeen intuba caawa ay ka soo wareegeen intii dagaalku socday ayba ahaayeen qaybtood kuwii dagaalka bilaabay aan ugu nimi arrimahan ku guulaysanay Somaliland waxa ka mid ah caawa Somaliland meesha yare gooja cad ay hadda ku sugan yihiin yaanu saacadaha soo socda hadii lahayd ma ka saari doono marka laga reebo ilaanay jirin meel deegaamadana oo ay gacanta ku hayaan intaasna hadii lahayd ama way la carari doonaan oo raqdooday la carari doon iyagoo nool ama raqdooda laga guri doonaa sababtoo ah binaadan xoog ku qabsadaa ma jiro reer xoog ku qabsadaana ma jiro waxaan kaloo sheegayaa Somaliland markay hadlayaan waxay yiraahdaan ciidamadii Puntland baa nala dagaalamay halkan ciidamada ka dagaalamaya waa dadkii jamaahiirta binaadanku way isu soo yeelanaya system Puntland oo halkan hadda ka jira oo ka shaqeynaya oo dawladda Puntland ay leedahay oo nala jooga ma jiro waxa jira dad adeer beelaabaan nahay dadka nagu soo duulayna waa beeluhu inay isu heeliyaan xaq bay u leeyihiin